munaasabad heer sare loo soo agaasimay oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe ee deegaanka Jirjir ayaa waxa ay ka qabsoontay isla xarunta dugsigaasi. Munaasabadan oo ahayd mid maqaamkeegu sareeyo ayaa waxa soo abaabulay ururka dhalinyarada ee Buni Foundation. Munaasabadan oo ujeedkeedu ahaa dhiirigelinta iyo abaalmarinta ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsigaasi ayaa waxa ugu horeyntii hadallo ka jeediyay maamulaha dugsiga iyo duqa deegaanka Jirjir, waxayna soo bandhigeen baahiyo asaasi oo ay sheegeen inay ku gaadaamin yihiin dugsigaasi. tayeen in laga tayeeyo xagga waxbarashada haday tahay iyo xagga go'naha haday tahayba waxa jira macallimiin bilaamishaar oo dugsiga ka shaqeeya kuwaas oo baahan iyaguna wax lagu dhiirigeliyo inay ka helaan bulshadooda awal ka heli jireen laba arday ka qaadi jirnay $2 uga kaba jirnay ardayda way ku filan waayeen macallimiintii dugsiga ka shaqeynayay. taana waxay keentay inuu macallinkii waxa ku dhiiradaha waayo liitinima ay xaga ka timaado waxbarashada dugsiga hoos dhacay ku timaado sababta keentay waxa weeyaan macallinkii waayay wixii yaraha ku dhiiranay waa qodob muhiim ah oo u baahan inaan soo bandhigo hal macallin oo dugsigan ka maqan sidiisaba anu waxaan ahay maamule waxaan ku qoranay maadada xisaabta ayaan ka bixiyaa dugsiga maadada aan bixinayo waxa jira anagu xiisad ku jira ayay waalidina soo booqanayaan ama wafti baa imanaya xiisada waan ka baxay wax la kulmay waalidkii ama cid kale soo booqatay bargo ama ku imanay xiisadaas marka hawlaha ma yaal wala wada garanaya waxay ahayn inuu maxaan ku dhahdaanay had iyo jeer sameeyo xiisado ku galo barnaamij fara badan oo yaal halkaana waxa loo baahay hal macallin oo xisaabta bixiya oo dugsiga gabi ahaanba ka maqan oo isagan uga baahannahay cid kasta oo naga caawin karta habtii toddobaadna nooga helo hal macallin toddobaadkii 3 maalin noo soo bixi kara ama 4 maalin noo soo bixi kara hadii la noo helo waa noo muhiim aad iyo aadna waan ugu baahannahay laba fasal oo dugsigan kamid ah ayaa bilaa fadhiya bilaa kuraas oo malahaba sidaba waxa dhacay laba fasal ka soo jeedo la dhisay muddo hore oo wax fadhiya la keenin oo nimanka ardayda aan diiwaan gelinay ee ulada ahayd aan soo fadhiisinay wax fadhiya oo u yaalan aanan jirin oo fasalada kale uga soo xabad qaadna jira xabad qaad kale ku filan way ardaydii bilaa fadhiya markaa noqdeen labada fasalna waa qodob yaalna meesha yaala oo aad iyo aad muhiim ah walaba fasal ay noo dhiseen qurbo joogta inaga caawiyeen fadhigiiba ka reebeen wax fadhiya looma keenin waagi labada fasal aad iyo aad nagu caawinayaan fadhigooda iyagana waa talaabo muhiim ah qodob muhiim ah meesha noo yaala waxa weeyaan maalin quraan wax kuma dhamaadaan annaka waxa noo farxada imaasha iyo wax sheeg oo kaliya way baraarujin way waa wax qabsi weeyaan dadkuna dad wax qabsan horta wax looma qabto hadii maanta in yar baa Cabdullaahi ka sheegay dugsigan wax laga asaasay baa degta sakadaay oo dhan wax soo dhisay degta faamuleedka soo gaarsiiyay faamuleedka markuu joogo yaan hay'ad helay haweenkii qaatay qadaraaskayga in aan imka dhagaxin ba ku jiray ciidii wuxuu ka dhimanayaa markii in ciidii hore ku sameeyay laga qubo tarshada iyo sibir la galiyay laga gaarsiiyay jingada la saaray ilaa maalinta ay joogadeena haday macallin tahay haday oday tahay haday wax taayba tawta dadka wax qabsanayaan oo kamidnahay halka ka soo bilaab wax kasto noo yimaadana anagu hanbaliyo bogaadin u bandee diyaar u la garab joognaa wax qabsi kasto ka dhacameeshana ku ugu horeeyana anagu tolay marba meel ay tabar soo gaarsiisay hadalku inaga dhamaado waxa weeyaan haduu noo maqan yahay oo meel dheer joogo iyo haduu boorama joogo iyo haduu jil joogaba wax qabadka tolkayo anaguna kuwa garab taagmaan geesta kale waxa munaasabadaasi hadal ka jeediyay qaar kamid ah macallimiinta dugsiga iyo waalidiinta ardayda wax ka barata dugsigaasi sidoo kalena u mahad celiyay ururka Buni Foundation oo soo abaabulay munaasabadaasi. marka hore waxaan aad iyo aad u hambalyeeynaa bogaadinayaa ururkan Buni Foundation waxaan idin marka hore idin sheegayaa idinku baraarujinay intaan dhiirgelin wax kale ku sheegnay galay in loo faatixeeyo ninkii magacaas kala Cabdi Xasan Booni Allah rahma waxaan muxuu ahaa dhiirigelinta dhalinyaro waad maqlayseen hawsha macallinkaaga iyo waalidkaaga oo kaliya kuma hawlan waa arkaysaan in dad badan oo ku damqanaya adiga jiraan dhiirigelin iyo si kastiba horta xalay noo reebay mid anigu hadalka sii badinaynin waxaan leeyahay horta dhamaantiin waqtiga sharafta leh way mahadsan yihiin aad iyo aad u mahadsan yihiin
baahi wixii ka jirana maamulaha halkan ayaa inoo sheegay. intaasi kadib ayaa waxaa munaasabadaasi hadalla dhiirigelin iyo dardaaran iskugu jira ka jeediyey xubno ka tirsan ururka Buni Foundation waxaana hadalladoodii ka mid ahaa halkan waxaan soo istaagay maanta ka hadlo laba qodob oo muhiim waa dhiirigelin iyo bogaadin aanu hayo ardayda iyo macallimiinta dugsiga horta marka koowaad midda labaad waxay noqon doontaa ahmiyadda waxbarashadu ay leedahay iyo horumarkan dunida maanta halka la gaaray oo ardayda taas ula jeedo ardayda dhalinyarta ilaa aad ku quruxda badan horteeda fadhiyo midda koowaad aan ku horreysiyay waa bogaadin iyo dhiirigelin aan dhiirigelinayo macallimiinta dugsiga runtii duruuf walba waad u soo samirteen oo waayaheegii qalafsanaa lahayd waqti adagna aad soo marteen waad u soo samirteen ugu dambeyntii maanta iskuulka waxaad soo gaadhsiiseen meel aad iyo aad u qurux badan oo lagu wada dhiiranay ood soo saarteen ubax aad iyo aad u qurux badan ood ku soo darteen bulshada aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin dadaalkaa dheer ay u soo gasheen idinkoona qiimaynaynin waqti niga lumayay qiimaynayn idinkoo lacag aan qiimaynayn weji kalena aan qiimaynaynba waxaad isku xilqaanteen inaad soo saartaan ubax caafimaad qaba oo bulshada wax ka bedeli kara waxaan insha allah rajayn doonaa inta halkaa ku sugan ubaxa dhalinyarta ah ablaha iyo wiilashaba isugu jira maalmaha ka mid ah inuu ka soo bixi doono hogaamiye aad iyo aad qiimo leh inay ka soo bixi doonto gabadh dhakhtarada inuu ka soo bixi doono wiil maxaan ku raadaanay saamayn kula dunida macallimiinta ubaxa dhalinyarteed ku dadaalaysaan maanta tacliinta waxbarashada aad baraysaan waa abaal aan idiin hayn doono waa abaal iyagu ay idiin hayaan waa abaal ay bulshadu idiin hayn doonto dhalinyarta maanta horteena fadhida waxaan ku dhiirigelinayaa waddankan madaxweynaha ka taliya shalay toole wuxuu ahaa wiil yar oo dhalinyar oo sidiinoo kalaa oo wax baranaya oo dugsiyada waddanka wax ku barta oo sidiinaasoo kalaa tuulo wax ku barta Buni Foundation waxay diyaar u yihiin inay u bandhigaan ciddii ay arrintani khusayso marka oo ciddaan idin soo sheegay oo la yiraahdo dugsigii waxaasaa ka dhiman aan uga faa'iideysanayaa media oo fursadan maanta aan uga faa'iideysanayaa iskuulka maamulihii baahiisa oo inoo akhriyay waad arkaysaan in qof walba uu ku soo darsado waayo waxbarashada goobta wax lagu baranay qofka wax ku soo darsada waa sadaqatul jaariya weey waa u soconaysaa weligiiba waa iskuulkii u jiraya jiilkana markay ka baxaan jiil kale u iman doona intaa waxaan fariintaa farayaa dadka deegaankan jijirka ka soo jeeda inaad baahiyaha iskuulka ka jira sida ugu dhaqsiyaha badan aad uga soo jawaabi doontaan annaguna insha Allah hadii la waxba isku xirmeen muhiimada iyo wixii loo socdayna waxa ahayd hadaan in yar ku soo koobno waxa weeyaan al-cilmu nuur wa jahlu dalaam inaad cilmiga barataan oo idinku baraarujino walaalahayga naga yar ee dugsigii jooga inaanu niraanada cilmigu inuu faa'iido u yahay iyaga oo aanu kula hambaliyano sanadkan 2018 ilaa 2019 iftitaaxiisa koobaad laakiin aan yar dibadii ka dhacnay waqtiyada iyo duruufaha awgeed laakiin haddana waxaan ahay kuwii mar walba idin la garab taagan inaanu hambaliyo mar walba iyo haabni la garab taagnaano laakiinse waxa weeyaan haddana mar walba inaanu walaalaha ka yarayna mar walba waanino aanu u imano aanu deejahad iyo jihaad la galno gudoomiyaha ururka Buni Foundation Cabdirashiid Ibraahim oo Cali ayaa gabagabadii munaasabadaasi si qoto dheer uga hadlay waxyaabaha ururka Buni Foundation uga qorshaysan deegaanka Jirjir sidoo kalena baaq dheer u diray qurba jooga deegaankaasi uguna baaqay inay ka soo qayb qaataan horumarinta deegaankooda muhiimada iyo wixii loo socdayna waxa ahayd hadaan in yar ku soo koobno waxa weeyaan al-cilmu nuur wa jahlu dalaam inaad cilmiga barataan oo idinku baraarujino walaalahayga naga yar ee dugsigii jooga inaanu niraanada cilmigu inuu faa'iido u yahay iyaga oo aanu kula hambaliyano sanadkan 2018 ilaa 2019 iftitaaxiisa koobaad laakiin aan yar dibadii ka dhacnay waqtiyada iyo duruufaha awgeed laakiin haddana waxaan ahay kuwii mar walba idin la garab taagan inaanu hambaliyo mar walba iyo haabni la garab taagnaano laakiinse waxa weeyaan haddana mar walba inaanu walaalaha ka yarayna mar walba waanino aanu u imano aanu deejahad iyo jihaad la galno weeyaan muhiimadu marka hore ilaahay qodobka labaad aanu ka hadlayna waxa tahay tayeenta macallimiinta iyo macalinka loo baahan yahay xisaabta taana waxa ka qaban karnaa Buni Foundation ahaano horta meesha waxa fadhiyo dhani waa engineers doctors iyo aqoonyahaniyo teachers intaas meesha fadhiya dhammaantood waxay u badan yihiin rag jaamacad ka baxay xiisada la raadinayna dhammaantood ku waa takhasus
taasna waxaan ku dadaalaynaa inaanu dib isugu noqonno toddobaadkii nin henlayaa iyo bishii nin henlayaa 3 xiisood ama 4 xiisoodba inaan taana niga kaafiyi doono insha Allah duu la yiraahdo dadaalkaana isna yaraysan mayno oo taasna waxna anaga noo taal horta dadkani qolqol joog iyo qurba joog labada waa leenahay qurba joogteena waxaan sheegaynaa inay il gaar ah ka soo eegaan deegaanka Jijir baahiyo badan buu u baahan yahay ugu dambeyntii ayaa waxa munaasabadaasi waxa abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanadii kala duwanaa ee dugsiga iyo imtixaankii shahaadiga ahaa ee Somaliland waa Cabdicasiis Jaamaciga shabakada caalamiga ee Borome News deegaanka Jijir ee gobolka Awdal